هذا وزير كان له قدوميها بنجيا بهذا بنجيا أما سأورك بنجيا الصوماليات لما مرت الشرف تكلم عيد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعلي وناكسن كنت فرحت أي تهاي شرفنا وعي تهاي ما أنت إن أنا كلا سوقيب كلو shirweynahan aad ku soo bandhigayseen waxqabadkiina iyo sida isugu xiran tihiin iyo bulshada waxa u haysaan runtii waxaan isleeyahay shaqo fiican ayaad qabateen waa idin hambalyeynaa waa idin bogaadinaynaa waa idin dhiirigelinaynaa ma rabo inaan hadal badan halkan ka sheego waxaan rabaa saaxiibkay gudoomiyaha ururka bangiyada Soomaaliyeed Axmed Shirwac ayaa rabaa inaan hadalkiisii hadaatay ku saabsan wuxuu yiri war wasiirada waa baranay maalmaha la soo shaqeynay dad caadi waaye annagana caadi iska dhigay marka runtii gudoomiyaha oo maadsan tahay ra'iisul wasaaraha wuxuu yiraahdaa sidii bini aadamkii aanu noolaano ama bini aadan ahaan Soomaalida ku hadlayo marka moogtahay markay laakiis weji oo bahal ayaa lagu gelinayaa marka si lagaga cabsado wuxuu noqotid marna weji oo bini aadan ayaa soo labisanaysaa arrimo oo xaqiiqo ah ayaa wadankeeda ka jira runtii aniga waxaan leeyahay bahda ganacsiga ama businesska guud ahaan ama gaar ahaan bangiyada maalmo dhow oo la shaqeeyay waxaan leeyahay si bini aadanimo ah ay noo shaqeeyeen oo yaanan dhankeena annagana wax cabsiya laga qabay waxaan u malaynayaa shirkan maanta wixii loo guntay inuu sidaa ahaa in la isku barto la isla fahmo ujeedooyinka iyo ahdaafta xukuumaddu waxay ka shaqeysaa ganacsigu iyo businessku waxbuu ka shaqeeyaa ra'iisul wasaaruhu hadda abaab waa u taabtay business iyo bangiyo waxay ka shaqeeyaan horumar bulsho dhaqaale ayay ka shaqeeyaan xukuumadna waxay ka shaqeysaa shuruuc iyo amni ayay ka shaqeysaa marka baahida ay isu qabaan labadaas yani waad wada dareemi kartaan dalkeeni markii uu dumay runtii waxyaabaha uu la dumay asbaab badan ayaa loo tiiriyaa laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa kamid ah shuruucda oo aanan lagu dhaqmin oo aanan la ilaalinin oo aanan samaynin oo muwaadinku uu dareemo xadgudub uu dareemo siyaasadeed dhaqaale bulsho cadaalad darro dhan inuu dareemo annaga waxaan rabnaa sida madaxweynaheena halkudhigiisa ahayd xukuumaddan waxaa halkudhig u ah Soomaali heshiis ah waxaan ula jeedaa Soomaali heshiis ah in businesskii community-ga iyo xukuumaddu inay heshiis yihiin macnaheedu waxa waaye isfahamsan yihiin ujeedooyinka iyo ahdaafta ay u socdaan inay isfahamsan yihiin oo aysan contradictory isku ahayn isla isku hor imaanaynin in la isfahamsiiyo u baahan ra'iisul wasaaruhu dadku waxay ugu sheegay wuxuu yiri ganacsatada iyo konseelkooda iyo guddiga wasiir ka tirsannahay oo yiraahdo NAMLAC oo gudoomiyaha bangiga wuxuu ka tirsan yahay guddiga la yiraahdo NAMLAC oo National Anti-Money Laundering Committee
كل جاس يعني عبسي أي على يلا وحياة هذا أن تعمل إنه كميت مركا وأنا ما راح أدي ليس همسيو قلت بني آدم كل حاجة على السينوفوبيا the fear of the unknown يا المرء عدو لما جهل قفكو وحو عدو النقطة ويوسن أقولنا وعبسنا مركا سؤال waxay tirada barashoorteed hay nacay horta process kaas inaan bilowno oo aan isfahamno horta waa muhiim oo interaction dhex maro namlak hadafkeedu waxa uu yahay the National Anti-Money Laundering Committee muxuu yahay danta laga leeyahay dan oo xukuumaddu iska leedahay ma ujeedo gooni ah oo ka leedahay ma danteedu waxa waaye waa business-ka ودقارها ودنكا وتهن ماركتي إمانكا سي لو ماركتي لو ديفلكت جري ولو تورو وماشي الله صاروا أو تورو يا قبي كرا أنا قد الدنيا حكون نقولها interconnected الدنيا والسحر انتهى سومالي isolated معناها جزيرة ما markaan rabnaa adduunyada la ganacsano oo aan marinadeeda marno oo dhaqaalaha bangiyada kala dhex galno yani waxaa imaanaya la xisaabtan iyo iska fiirin iyo iska hubin marka xukuumaddu waxay idin qabanaysaa waxa waaye waa inay idinka ilaaliso idinka interestigiina adigoo fiirinaysa inay idinka ilaaliso oo idin dhaxayso idinka iyo caalamkaas inay idin dhaxayso waa labo hoostan waxaa ku jira nimankaas argagixisada oo khawaarijta ah oo systemkeennii maaliga ah isticmaalaya dee meel kasta inay isticmaalaan maaliyadda kaliya ma isticmaalaan dhulkii bay qabsadeen beerihii qabsadeen masaajidii qabsadeen dugsiyadii qabsadeen xukuumaddu meel kasta way ka bixinaysaa marka xukuumaddu waxaa muhiim ku ah inay meel kasta ka bixiso dugsiyada quraanka ka bixinaya oo masaajidii ka bixinaya waxa culimada loo soo laaday oo waxay ka bixinaysaa mataqaana dhulkeeni iyo guryaheeni physically dhulka ay haystaan ka bixinaysaa marka halkan maaliyadda way ka bixinaysaa marka qaarkiis oo la bixinayo cudur xanuun baa jira Soomaa xanuun baa jira laakiin maxaa ka dambeeya caafimaad ka dambaysa marka cudurka marka la saarayo jaraaxa iyo operation lagu sameeyo tusaale ahaan xanuun baa jira intaasna waxaan ku daraynaa sida uu gudoomiyaha uu ku darayo hana la tashto hatta sida operation loo sameeyo aan ka warqabno sida loo jeexayo aan ka warhayno ayadana waa dhageysana way soo gudbiyeen runtii annaguna ma qaadanay waxaan rabnaa saaxiibo inaan ahaano oo aan idinkuna aad ahaatiin annagu inaan business friendly ahaano dad saaxiibo la ah businesska oo u baahan inaan ahaano sababta waxa waaye bulshadan ayaa waxaa naga saaran mas-uuliyadda naga saara waxay tahay inaan wax u qabanno inaan horumarino inaan shaqo u abuurno so waxaan u baahan nahay businesska waan u baahan businesskuna inay government friendly inay noqdaan xukuumadda la saaxiibaan marka heshiiska aan gelayno iyo contractka aan gelayno haddii aad rabtaan kaftan dhablo waykan haddii aad rabtaan inuu maaragtay mid qudbasira inuu ahaadana ya oo hoos kale layska meersadana yacni waa la fiirina oo macnaha waa waaye businessku environment ku shaqeeyaan cabsiyaa haysata marka waxaan rabnaa in horta cabsidaas keligeed ka soo baxdaan oo safka xukuumadda soo gashaan oo allays iyo xulafo la noqotaan oo aan cadowgaas wada tagno adinku waran gambarayn oo aanan dhuumanaynin marka maanta waxaan leeyahay runtii xaaladda adinka laftigeeda ku sugan tihiin way adag tahay inaad ganacsataan baahataan environmentkaas ku shaqaysiin marka hal mar waxaa idiin koro on soo jeedina maaragtay waad noolanaysaan nolol wanaagsan aad noolaanaysaane adinkoonan wax reservation aan ahayn oon iskala reebaynin
inaad xukuumadda soo garab istaagtaan dagaalkaasaan ku xiriirtirayno khawaarijta laannahu degdeg bay noqonaysaa markaas nimankaas si degdega looga adkaanaya laakiin hadda sidan waa very slow ya laakiin haddaad hore usoo baxdaan oo aad maaragtay bannaanka timaadaan sida xukuumadda oo madaxweynuhu hogaamiya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha kulli dhammaanteen aan mataqaanaa bannaanka wada taagannahay adinkana waxaan idinka codsanaynaa sidaas oo kale inaad bannaanka soo istaagtaan oo aad dagaalka la timaadaan sababta baa idiin sheegaya madaxduna way ku xilsaan dagaalkan ma joogsanayo ilaa aan ka adkaano ilaa nimankaasaan ka adkaano ma joogsanayo marka qofkii isleh meel dhex ayuu istaagi doonay hadda bannaanka ay soo bixinin ya waxaan sheegaynaa maalinkii aan nimid oo 6 bilood 7 bilood 8 bilood oo sida u bilowday waay maalinna ma joogsanayo marka saa darteed si speed leh oo degdeg lagu adkaano oo aan isu dhaafino dhibkooda qoyskooda waxaan soo jeedinaa in bahda ama community-ga business-ka dhammaantood inay bannaanka usoo baxaan wax kasta oo wanaagsan cost ayuu leeyahay runtii waxbaa naga soo gaaray dhimashaa maalin walba dhacdo ciidankeenna dhinta dhulkeenna la gubaa dadkeennay baabi'iyaan marka waa inaan si full ah inaan u galnaqo oo dagaal aan loo kala harin la galo oo hal mar laga soo wada jeesto hogaankina waa haysataan hogaankii waa wax kale ka shaqaynin ayaad haysataan marka insha allahu tacaala waxaan rabaa boyntigaas in aada u xoojiyo bahda mar labaad ayaan runtii idin bogaadinaa shaqo wanaagsan aad qabateen waxaan leeyahay aniga I'm impressed maaragtay waxaan ku ahay yani wax ku qanacsanahay waan ku faraxsanahay waxa iga hor muuqda sidoo kale waxaan u mahad celinaa gudoomiyaha bangiga dhexe runtii tobanka iyo ay samayn jiraan wax wanaagsan ayay qabteen howlo wanaagsan ayayna muujiyeen marka dhammaantiin waa idin bogaadinayaa guulo la taaban karo inaad gaartaan ayaana rajeynaya sanadaha soo socda وانا ما زلت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.